السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي قالقة كسر هذا مركز علمي تك يوتيوب أنا قاعد أقول حسب سبسكرايب له دي أنا شوفت أنا نسيت فيديو قال لك شير نبيه كومنت بنا وأكتيفين سكسر نقد ونكسن صاحبي قالقة فيديو كمان تو حن صاحبي إذا كنت تسدونا أما أن إذا كنت فلقين دونا فرق قد هي HDD يسدو كله SSD لابتوب أنا استعمال نوع إليه storage كاس أو أخا ماشي أنا مركز كوكا سنو حكته iyo wax walba oo laptopkaas noogu jira hadii aan lahayd Windows-ka ku jira markaas fiidiyoyaasha software-rada wax walba oo laptopkaas ku jiro meesha ay ku jiraan ayaa waxa ay tahay markaas storage ayaa markaas waa u kala baxaa laba nooc labadaas nooc ayaa marka farq weyn ayaa u dhaxeeya dadkuna way isku qaldaan hase ahaatee fiidiyowga maanta waxaan kugu tusi doonaa farqiga u dhaxeeya HDD iyo sidoo kale SSD number 1 waxaan ku soo qaadanayaa waa xawaaraha ama speedka hadba sida u taqaan labadan machine ee ku muuqata labadan laptop wax walba oo ay ka wada siman yihiin hadii aan helayd processor iyo wax walba iyo model kaliya waxay ku kala duwan yihiin midkan waa SSD midkan kalena waa HDD intaas kaliya ay ku kala duwan yihiin marka waxaan sameynaynaa labadooda waa dansan yihiin hal mar ayaan soo wada shidayaa midka soo horkaca 1 2 3 haye mid walba iyo inta uu ku qaato ay markaas saacada ayaa sheegi doonta sakimada SD waa diyaarsan yahay soo kici rabaa waa soo kacay SSD waxa ay ku qaatay 12 second waa 10 second inuu soo kaco HDD waa kana hada goorma soo kacay wana iska sugna cabar waana seexatid soo kacay أنا سوق قويستي سويستي لبس ركعة سنة سوت كتير كبعدي مركزها أمانية مركزه هجي يدين سوق عيا لما اللابتوب ده وحول بوكول سميه هل دقيقة يقولوها إلى هذا الصومك يعني ولو سوينا ولو سوينا ولي وان سوينا HDD هذا أيو صوكع وهل دقيقة إيو 12 سكن ماشانا 8 سكن كيرا لو صوكع وحان فيلايا ما جرتو صوب عاد نيغو سو تكتي SSD عاد u qaadatid markaas HDD halkaas aan ugu gudubno qaybta xawaaraha ama speedka mid xasuusnow mar walba oo laptop gadanaysid waxa qaalisan laptopka oo la socdo SSD laptopka SSD ku shaqeeya ayaa ka qaalisan midka ku shaqeeya HDD-ga markaana keeba qaalisan HDD iyo sidoo kale SSD markii aad suuqyada ka soo gadanaysid 512 midka ah ama 512 waxa ku soo helaysaa lacag gaaraysa $80 iyo wixii ka sareeya inaad ku hesho laga yaabaa 75 ناسنا كل شيء ولا يلا لكن اسكو على الاسان ayaan ka soo qaadaya waa $80 iyo ka badan ayaad ku soo helaysaa markaas SSD-ga halka mid kale midka ah oo ah HDD 500 GB aad ku soo helaysid $20 ama $15 waad fahmi kartaa farq weyn ayaa u dhaxeeya xagga qiimaha markii hore waxa soo aragtay xagga xawaaraha midda kale aan ku xasuusinayaa waxa ay tahay hadii computerkaada oo shock ku yimaado midkan HDD-ga ah waxa laga yaabaa in uu markaas oo sidaas ku baabao ama oo sidaas ku dhinto si fudud ayuu markaas ku ciladooba markii oo computerka oo shock ku yimaado ama cilad ku timaado laakiin SSD-ga si adag ayuu ku ciladooba oo si fudud ku ciladooba markaas waxa uu leeyahay qayb la dhaho shock resistant oo ka difaacda markaas shock iyo waxyaabahaas ka difaacda ayuu leeyahay markana waxaan ku soo gabagabeynayaa mid walba iyo waxyaabaha markaas uu ku wanaagsan yahay sidoo kale hadii markaas laptopka u isticmaalaysid video editing waxa ku anfacayo SSD sidoo kale hadii aad computer markaas u isticmaalaysid gaming ayadana waa SSD oo wax walba oo markaas software ah oo computerkaada aad kula shaqeynaysid waxay kaaga baahan yihiin computerkaada inuu ahaado SSD midaas ayaana ku fudud hadda waxaad isweydiinaysaa HDD muxuu ku fiican yahay HDD waxba kuma fiicna kaliya waxa isticmaali kartaa inaad fiilmaan isaga daawatid
zoom iyo ku gashid macnaha markii online oo kale sidoo kale documentiyasha marka ku shaqeynay sidoo kale office oo kale waxyaabaha office looga baahan yahay oo kale waxyaabahaas ayuu ku fiican yahay examyasha oo iskuulada oo kale way riska oo kale in waxyaabahaas asaga diyaarsatid waxyaabahaas hoose ayuu ku fiican yahay markaas aad u isticmaali kartaa maadaama aad markaas aadan gada karin SSD waana markaas kan iska qaadataa markaas haddaba adigu isku fiiri xawaaraha waa soo aragtay waxyaabaha uu ku fiican yahay waa aragtay kee fiican markaas SSD mise HDD qaybta comment nagu reeb saaxiibayaal haddii fiidiyogan oo wax ka saaciday la sii wadaag saaxiibadaada si ayagana wax uga saacido intaan fiidiyoga wax xiga kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh